اترك أثرا في دنياك كي تلقى رحمة مولاك. ازرع خيرا تجني خيرا من قلبك رسمته يداك. اترك أثرا في دنياك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني لبعض اترك أثرا قبل الرحيل. walaal waa inaad noqotid sida daruurta oo kale. daruurtu marka ay soo madoobaato, marka ay soo qabsato, dadku way bishaaraystaan, dadku way farxaan, dadka wanaag iyo khayr ayay ka rajeeyaan. daruurtaasi marka ay timaado, ay daruurtaasi ay da'do, way anfacdaa, waxbay u tartaa, waxbay u qabataa, way qaboojisaa, way ku intifaacaan. daruurtaasi marka ay ku da'da ay ka tagto, raad bay kaga tagtaa, barwaaqay kaga tagtaa, nolol fiican ayay kaga tagtaa, farxad ayay kaga tagtaa. qofka muslimkii waa sidaas oo kale. walaalihii wuu anfacaa mar walba, way ku farxaan imaantigiisa. markuu u yimaadana waxbuu la qabtaa, khayrkuu u sheegaa, wuu anfacaa. marka uu ka tagana raad iyo wanaag iyo khayr ayuu kaga tagaa. walaal, raad ka tag walaal, xasuus ka tag walaal, wanaag ka tag walaal. xasuus uga tag ahelkaaga, asxaabtaada, jaarkaaga, masjidka aad ku tukatid, madrasadda aad ka dhigatid, xaafadda aad degan tahay, waddankaaga. raad uga tag, ha lagu xasuusto. wax anfacadda badaa, magac wanaagsan ka tag. walaal, dadku waa laba qaybood: imaa mustariixun aw mustaraaxun minhu. imaa mustariixun waa mid nastay, waa qof mu'mina oo adduunkan ka nastay tacabkiisii, fidnadiisii, mashaqadiisii, walbahaarkiisii, qalaqiisii uu ka nastay. waa qof muslima oo shaqaystay oo raad wanaagsan ka tegay. kaasi waa ka loo baahan yahay. iyo mustaraaxun minhu, mid laga nastay oo faajira oo faasiqa. gaalnimadiisii baa laga nastay, munaafiqnimadiisii baa laga nastay, xumaantiisii baa laga nastay, dhibaatadiisii ayaa laga nastay. dadku waa labadaa: imaa midkaa nastay ama midkaa laga nastay. kaa laga nastay ha noqonin walaal, kaa nastay noqo. ee intaa uu adduunka uu ka maqan yahay, uu qabrigiisa uu ku jiro, ajarku uu socdo, wanaaggu uu socdo, khayrku uu socdo. waxaa soo maray nebiga, lala soo maray janaasad baa lala soo maray. markaasaa nebigu waxa uu yidhi: mustariixun wa mustaraaxun minhu. asxaabtu way garan waayeenoo waxay yidhaahdeen: nebi allow muxuu yahay mustariixun wa mustaraaxun minhu? nebigu waxa uu yidhi: addoonka mu'minka ah wuxuu ka nastaa adduunka iyo dhibaatadiisii iyo daalkiisii iyo dhibaatadiisii, ilaa naxariista ilaahay ayuu ku nastaa. addoonka kaafirkii waa laga nastaa. addoommada ilaahay iyo dhulka ilaahay way ka nastaan, iyo xayawaanka iyo geeduhuba dhibaatadiisa ayay ka nastaan. qofka mu'minka ah wanaag baa u biira, wanaag baa samada u kora. sidaa awgeed markuu arladan u ka faaruqo, adduunkan marka uu ka baxayo, marka uu ka baxo uu aakhiro uu wareego, samada u oyda,
dhulka u ooya ilaahay waxa uu yidhi isaga oo ka warramaya gaalada famaa bakat calayhim alsamaa'u waalardu wamaa kaanuu mundariin gaalada buu ilaahay yidhi fircawn iyo waxay raacsan oo dhan famaa bakat calayhim alsamaa samadu ma ooyin waalardu dhulkuna uma ooyin wamaa kaanuu mundariin waxbay kamay sugeen khayr kama korayn wanaag iyo khayr samada uma fuulayn laakiin qofka mu'minka ah samada ayaa u ooyda dhulka ayaa u ooya meelihii uu ku tukanayay uu ku cibaadaysanayay ayaa u ooya qofka mu'minkii waxaa la rabaa inuu raad ka tago raad wanaagsan inuu ka tago ayaa la rabaa taasaa anfacaysa adduunkiisa iyo aakhiradiisaba walaal waxaan kuu sheegay dhowr tusaale waxaad og tahay al-imaam annawowi oo magiciisa la yidhaahdo yaxya ibnu sharafi nawowi abu zakariya waxa uu dhintay isaga oo da'diisu ay tahay 45 jir ma guursan caruur u ducaysa dabadii kamuu tegin raximahullah bal ummadda islaamka oo dhan ayaa u ducaysa oo ayaan garanayn al-imaamu nawowi ayaan garanayn aqal uu ka maqan yahay kitaabka la yidhaahdo riyaadu saalixiin ma jiro kitaabka la yidhaahdo 40 nawowi aqal uu ka maqan yahay ma jiro imaamkaasaa ka tegay da'diisu 45 jir ayay ahayd ummadda islaamka siduu u anfacay kitaabka riyaadu saalixiinka luqadaha adduunka oo dhan ayaa lagu qoray guri walba waa looga duceeyaa aqal walba waa looga duceeyaa ummadda islaamka oo dhan waa u ducaysaa imaamu nawowi wuxuu ka tegay kutub badan alrawda ka mida minhaaju taalibiin baa ka mida saxiixu muslim waa kii sharxay sharxiga lahaa muxadis buu ahaa faqiih buu ahaa lugawi ayuu ahaa wuxuu ahaa ragga ugu muuqda fuqahaa ashaaficiya bal waxaa la odhanayay sheikhu shaaficiyati ayaa la odhan jiray raad badan ayuu ka tegay ummadda islaamka oo dhan ayaa xasuusata imaamu nawowi jirkiisii waa la aasay laakiin magiciisii wuu nool yahay raad buu ummadda uga tegay imaamkii imaamulmufasiriin ibnu jariir altabari waxa uu dhintay isaga oo guursan wax walada oo dabadii u duceeya kamuu tegin laakiin ummadda islaamka oo dhan ayaa u ducaysa imaamu altabari tafsiirkii weynaa isagaa lahaa tafsiiru tabari taariikhu tabari ummadda islaamka oo dhan ayaa u ducaysa shaykhulislaam ibnu taymiya isaga oo dooba ayuu dhintay uun guursan walad saalixa oo dabadii u duceeya kamuu tegin laakiin ummadda islaamka oo dhan ayaa u ducaysa ummadda islaamku diinteeda u xafiday caqiidadeeda u ilaaliyey daraadda islaamka ayaa loo xidhay oo loo garaacay oo xabsinka ayuu ku dhintay isaga oo gaajoonaya oo haraadan raximahullah haddaad doonaysid casrigeennan wakhtigan aan ku nool lahay waad wala garanaysaan doktorkii cabdiraxmaan assumayti la odhanayay afrika ka shaqayn jiray wuxuu ahaa tabiib kuweytiyaan ayuu ahaa dhakhtarsay maca daalika dacwadaa ilaahay ayuu ka shaqaynayay meelaha gaajada iyo faqriga iyo dhibaatada iyo dagaaladu ay ka socdaan afrika ayuu dacwada islaamka ku faafin jiray ayuu diinta ku faafinayay waxaa la yidhaahdaa wuxuu islaamiyey uu shahaadada u qabtay 11 malyuun oo qof waxa uu dhisay baa la yidhaahdaa 5,700 oo masjid waxa uu qoday baa la yidhaahdaa 9,500 oo ceel ayuu qoday waxa uu dhisay baa la yidhaahdaa 860 madarasadood iyo 4 jaamacadood waxa uu furay baa la yidhaahdaa 204 markas oo islaamiya 29 sano ilaa 30 sano wax kun u dhow ayuu ka shaqaynayay diinta ilaahay dacwada ilaahay ka shaqaynayay raximahullah dadkaasi raad bay ka tageen dadkaasi magac bay ka tageen dadkaasi sharaf bay ka tageen dadka waa la xusayaa khayrkii baa u socda wanaaggii baa u socda magacoogu ma dhiman magacoogu wuu nool yahay haba maqnaadaan iyagu
jirkooga haba maqnaado adiguna raad ma ka tagtay wanaag ma ka tegaysaa khayr ma ka tegaysaa اترك أثرا قبل الرحيل اترك أثرا قبل الرحيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.